tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester United Jose Mourinho ayaa waxa uu wadaxaajood hawanadiifisa la yeelan doonaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha fulinta ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United Ed Woodward. Kulankan ayaana waxa uu ka dhici doonaa magaalada London ee caasimadda dalkaas Ingiriiska kahor inta aysan is arkin madaxda sarsare ee kooxdaasi maalimada Khamiista ay soo aadan. Tababaraha u dhashay dalkaasi Boortaqiiska ayaa waxa uu doonayaa in taageero buuxa uu ka helo madaxda sarsare ee kooxdaasi kadib markii ay soo baxday toddobaadkii hore in tababarahan uu weyn doono xilkiisa macalinimo ee kooxda Red Devils kadib ciyaartii ay la yeesheen kooxda Newcastle United, sida uu daabacay wariyaha David McDonald lagu magacaabo ee ka tirsan majalada Daily Mirror. Kooxda Manchester ayaa warbixintaasi ku sheegtay mid waxba kama jiraan ah ayadoona taageertay tababaraheeda, waxayna iminka wadahadaladan ay ku doonayaan in Mourinho iyo Ed Woodward ay ku cadeeyaan xaaladda tababarnimo ee kooxdaasi iyo halka mustaqbalkiisa uu ku dambeyn doono. Tababare Mourinho ayaana doonaya in kooxda ay si weyn ama si cad ay u taageerto, gaar ahaan in bisha January ciyaartooy dhanka dambe ee daafaca dhexe ka ciyaara in loo keeno halkaasi oo ay kooxda si weyn uga dhibaatoonayso. Hase kooxda Manchester ayaa u muuqata in ay ka cagajiidayso in ninkan ay lacago kale gacanta u geliso, ayadoona xidigihii uu soo iibiyey inta badan ay yihiin kuwa kooxdaasi ay ku fashilmeen. Waxaana kooxda ku ciyaarta garoonka Old Trafford lala xiriirinayaa tababarihii hore ee kooxda Real Madrid Zinedine Zidane. Mustaqbalka Jose Mourinho ayaana ah mid mugdi weyn uu ku jiro, waxaana laga dhursugi doonaa waxyaabaha ka soo baxa is-araggan tababare Mourinho iyo Ed Woodward.